الله ما شاء الله. هذا المكان وادي بن هشبة، باقي 5 كيلو. وادي بن هشبة ومقالة يرى وكوبا ما شاء الله dadkeeda dhistay. qofkuna sharaf wuxuu ku leeyahay waa aqoontiisa diineed iyo akhlaaqdiisa iyo dalkiisii hooyo iyo ehelkiisa dhexdiisa. inaan dhul marini dhaayo male baa la yidhi. mar haddaadan beledkaagii hooyo aadan joogin marti baa tahay. soomaali haddaynu nahayna 80%, 70% aando ama 30% baa qurbo ku maqan, 70 ayaa beledka jooga. ma garateen? marka walaalahay sharafteennu waa inagoo dhulkeennii nabadayna, nabad ka dhigna, dadkeennii nabad u raadina. ilaahay dalbuina siiyey, laakiin caalamku waxay ku nool yihiin dhul saxaro ah ama dhul tallaj ah oo noloshu aad iyo aad ay inaga ciriiri inoo ku noqoto markaynu tagno. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay nabad noogu yoom min alayaam inuu ilaahay noo yasiro, inaanu dhulkayagii oo nabada aanu ku dhex noolaano, oo aanu ehelkayagii iyo dalkayagii iyo dadkayagii u noqono. walaalayaa waa ini salaamaya.